channelkayga kusoo dhawaada Dr. Sujiya muuqaalka laagsaar una sheerkeeray asxaabta hadii aan ugu cusub tahay muuqaalka subscribe inoo saar channelka hadii aan guud gal mawduucay maanta wuxuu ku saabsan yahay qof ka soo cabanaya anigoo aroos cusub ayaa hadana iga damaayo geedkayga ama xubinta taranka maxaa keeni kara maxaa sabab insha Allah haduu rabraale ka noqdo falanqayn doona mawduuceena hadii aan la socdo muuqaalka laagsaray una sheerkeeray asxaabtaada mawduuceena ku saabsan anigoo aroos ah ayaa geedka iga damaya maxaa keeni kara hadaba tasdiin falcelin aan ka bixiyo waxaa laga yaabaa in ay markaasi arooska kugu cusub ogiisa cabsi iyo welwel stress in uu jiro sida darteedana uu xubintaasi ay u shaqeyn laadahay muhiimadda aan rabo inaan ka hadlo ayaa ah ragga sidoodaba dareenkooda iyo kacsiga hadii laga hadlo ama xubinta taagan hadii aan ka hadlo waxa xukumo waa maskaxdooda ragga qaar isku mid maaha ragga qaarna waa isku mid inkastoo ay kala duwan yihiin haddana waxaa laga yaabaa maanta xaaskaaga inta sano soo qabtay aroos ku soo dhasheen maanta hadii uqd ay ku hayso ama adii uqda u haysidoo aadi aleeda waxaas kugu sameeyay waxaas inaad dhibsanaysid waa ogtahay maxay kugu sameeyay hadii aad markaas aad leedahay niyadaas ka dhehayso si kasto ayada u gacmeyso ama ay ku taabato xitaa ku istiimiso waxaa laga yaabaa in aadan kacsanin waayo niyadaada iyo jismigaaga ma aadan siinin xageeda sida awgeeda kacsiga taasna ku imaan karta mid labaad ayaa ah qofka haduu is leeyahay qofta ma qancin weysay wax ma qaban weysay sida rabto miyeel weysay hadii aad problemkaas isku furto aroos cusubna aad aysan wax ku sheegaynin adigina aad wax weydiinaynin wuu imaan karaa problemka ah qofkaani wax ma u qabato horta heerku rooba gaarsiisay ama ma aadan gaarsiinin laga yaabee qofka bini aadan waaye si wuxuu fahmi karaa si uu u qaadan karaa laga yaabee ayadoo indhaha isku qabatay ama indhaha isku qabsanaysa inaad aragto oo aad u moodo in ay dhibsanayso waxaad markaas sameynaysaa ama shakshawaadka aad sameynaysaa in uu culays ku hayo aysan waxba ka dareemaynin sida la ajigeeda horta waxaa wanaagsan in la hubsado marxaladda markaas jirto sidoo kale labo waxaa damin kara ama hoos u dhac ku keeni kara xubinta taranka adigoo aroos cusub ah in ay ka dhinto walwalka stress ku keena fikirkana uu keena hadaa mar fikiraysid wataan ka soo hadlayba hadaa mar aad fikiraysid wax oo qofka adeega lamaanahaaga ah kaga fikiraysid lagama yaabo in uu dareenkaaga wax yar xitaa iska nuuxiyo ama meeshiis uu ka kaco si walba hadee ku yeesho xitaa ma akacaysid dareenna markaas ma dareemaysid hadii aan ka hadlana dhanka walwalka waxaa keeni kara qofkii heer gaarto ma gaarsiis in aad markaas ku fikirto ama ka walwasho ama aad ka walwasho qofkaana muxuu ka aaminsan yahay raganimada muxuu ka aaminsan yahay maxaa dhacay geedkaaga ma yar yahay geedkaaga ma weyna miya waxaas kale problemkaas haduu kugu furan yahay maybe markaasi ma dhacayso in aad dareen qaado ama qofka haduu ku baahan yahay xitaa inaad dareen u qaado laga yaabo sidoo kale gabdhaha ama dumarka way iska xishood badan yihiin marka waxaa la rabaa astaan kasta ay sameynayso iyo dhaqdhaqaaq kasta ay sameynayso waxay ka turjumaysaa kalaam ay kula hadlayso hadii indhaas ku qabato hadii nuuxsiga yareyso sidoo kale hadii markaasi ay wajiga mara ay saarato taas waxay ka turjumaysaa in uu markaas dareen hadaa uu ku socdo kadibna aysan ku sheegan la aday qaabka ay u rabto xitaa dareenkaasi soo marka waxaan dhihi lahaa ragga yeesan cabsanin badana dumarka way iska xishood badan yihiin sidaas ay tahayna waa in aad xaaskaaga weydiisaa habka ay u rabto raaxada meesha ka hesho meesha raaxada ay ka dareento intaas waxa laga rabaa inta adiga horta raaxada ama istimtaac aad bilaabin in aad horta information aad kaasato sidaa darteeda dumarka way xishood badan yihiin in la weydiiyo wax alaala iyo waxay u baahan yihiin adiga xitaa naf ayaa leedahay si ayaad istimtaac u dareentaasa u dareento in ay markaas kugu sameyn karto ma ahan in meeshan soo gal hoodi dalaq ma jirto ka sidoo kale waa inaad isticmaashaa fitamiinada u wanaagsan awoodsiinta sidoo kale waxyaabaha markaasi tamarta leh waa inaad isticmaashaa sida timirta bashasha gaduudan iyo bashasha cadba waa inaad isticmaashaa sidoo kale bisbaaska waa inaad isticmaashaa basku wuxuu badiyaa shahwada sidoo kale toonta iyo malabka oo kalena waana isku darsataa waayo waxay ka qayb qaataan xajinta iyo awoodsiinta xubinta taranka ayay ka qayb qaataan insha Allah waxaan ku rajeynayaa caafimaad qab iyo badqab ee aad rajeynayaa baad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka la garay una share garay asxaabtaada